بسم الله الرحمن الرحيم. أدبا وحن نقوم بهذين يا سمسات تي في سعيد نظارة برنامجك وإيجاد دوبيه أو علم بارز كسابسن كالندرك هجرية إسلامك كالندر كان وحن سووا ذي مددر أو قصة بلا ميسة إلا يو كون يسقال بقول يتدباتن يا أفرتي وقت جاس وحن شوقي مركان بلابيو تولي إلى هذا وكثر سنة قبل كنود قول إلى هذا صلح وقت جاس وحن يستي أنا أم بلابه علم بعض تقصنا يو تاريخ الإسلام كهجري صارنا وحى واحد أيضا وقت جاس عادل سوق خلافي أرجع بشا أو بشا مركي للشيء لا أركي شيء مالك كحجة مالنتي للشيء إن بشي لوايو تاسع كلفتي إن مجرى ساعة عن قصة مياه علم بارستا وقت جاس واحد كشري وطنك لبا إذا عدد وطنك الصومالية رادي اللي رادي موضوعه يرادي هرجيسو إذا عدد ساعة واحد شيء كشرين إن بشي لقى أركي ميلا كم تهاي مركا أو كلا إيوه ميلا كم إذا موضوعه وقت جاس مركي بشي أما لو صامه أو صام كلا بلابه أما سل إيده أيها واحد لأركي شري إن مالك كحكت بشي لوايه dadku markaas waxay bilaabi jireen inay magaranaysaa isweydiiyaan haddii galabtay saakadan iidnay galabtana bisha aan weydiinay ku xigtay soonkaas ama iidaas manoojida waxay dadku isku qancin jireen markaas mar haddii noo sheegay bishii dambiga waxa qaba ninkii beenta sheegay laakiin anaga iideeni ama soonkeeni waa noo jiraan saasaa la isku qancin jiray inuu daa muddo ka bacdi waxa ka soo horjeestay culamaa oo diinkii markaa wadanka ugu waaweynaa oo arinta oo arkay arin khaldan dawladuna waxay ahayd dawlad aad looga dambeeyo oo aan amarkeeda la jabin karin waxay markaa culimadu qaarkood markaa bilaabeen in ayagoo muxuu ahaa sooman dadkii ay tujiyaan ilaa waxa weeye waa ku khasban yihiin dadka inay saaka tujiyaan mana aha subax magaranaysaa ciida ama ciidul fitr ha ahaato ama ciidul adxa ha ahaato waxay raacayeen shariicada islaamka nusuustu sida ay qabto suumu biru'ya wafduru biru'ya oo macnaheedu arag ku soon aragna ku afur saas waxa weeye waa asalka diinta islaamka dadkiina uma sheegi karaan inay tahay maanta yani maalintii soonka ugu dambeysay ama maalintii ciidda ugu dambeysay ma ay sheegi karaan ayaantii dhacdadii ugu dambeysay waxaan joogay salaxa waan ka tegey waxaan tegey tirakoobkii baan waxaan joogay meel la yiraahdo afar waaqo meeshaasaa waxaa noogu dhalatay oo raadiyo muqdisho laga sheegay ciid inay tahay biro subaxii waan iidnay markaan subaxii iidnay galabkeedii baan waxaan istusnay yani waxaan isniri bishii abla aan fiirino bishii waa arki weynay waxa magaranaysaa dadka shaki gelin kara daruur baa dadka shaki gelin kara ama ciryaamo cirkii wax daruura iyo wax ciryaama iyo wax magaranaysaa wax kala ma lahayn yani wax bishii qaran kara ma ay lahayn markaa waan qanci weynay oo bishii ilaa iyo mugdigii uu aad u weynaaday waxaan fiirinaynay bishii islaamka ayaan fiirinaynay markii aan soo quusanay baan iska soo horjeesanay niman baa waxay yiraahdeen war dhahay soonkii maanta iidii maanta aan iidnay saakan iidnay manoojida sidoo kale waxa la yiri waa noo jirtaayo dambiga waxa qaba ninkii magaranaysaa beenta noo sheegay baa dambiga qaba nin baa su'aal keenay markaa rag ka mid ahaa oo yiri niman yahow dukaamadeenna iyo bakhaaradeena waxaan saarnaa afar quful iyo afar muxuu ahaa sakatuuraan saarnaa aad baan uga taxadarnaa ma niraahno
ninkii xadaa dambiga qaba intaan ka tagno bakhaarkii oo ii sheegay ballaqan ma nidhaahno ninkii xadaa dambiga qaba ma nidhaahno marka bisheenna maan xafidano sida ma garanaysaa aan u xafidano dukaamadeenna iyo bakhaaradeenna arrintii nin baa muxuu ahaa ka soo horjeestay oo wuxuu yidhi haddaan noo qufuli kadhid bisha oo quful aad noogu samayn kadhid aad baad u mahadsantahay noo samee quful noogu samee bisha nimankii kale aad bay waxay ugu qosleen kii ma garanaysaa yidhi bisha maan quful u samaysano baa aad loogu qoslay aniga warkii macquul ila noqday markaasaa waxaan bilaabay bal inaan raadiyo bisha xawaaraheeda inaan ka bilaabo adigu ilaa iyo 11 sano waxaan muxuu ahaa u raadinayay bisha inaan u sameeyo xawaare anigu aan qaatay oo u qaadasho ah baan ka bilaabay xawaaraha u qaadashada ah waxaan ku talagalay haddii bishu ay dheerayso xawaarihii u qaadashada ahaa inaan kordhiyo si uu u gaaro xawaarihii dayaxa haddii uu noqon waayo oo bishii ay gaabiso inaan wax ka dhimo si aan ula qabsado mar kastaba bisha xawaaraheedii marna aan wax ka dhimo marna aan wax ku daro ku daridaas iyo ka dhimidaas aan ku raadinaya xawaaraha dayaxa waxaan waday muddo 11 sano ah oo ka soo bilaabantay 1974 ilaa iyo 1985 nasiib darro waxaan arkay bisha xawaaraheedii oo marna uu ku jiro dheerayn marna uu ku jiro gaabin arrintii waxay gelisay caajis bay gelisay waxaa markaa raadiyey nimanka yaqaana cilmigan xidigaha Soomaaliyeed oday la yiraahdo Sheekh Maxamuud Ciise Guray baan u tagay magaalada Gaalka iyo deegaanka markaa sheekhi baan su'aashii weydiiyay waxaan arkay bishii inay marna dheeraynayso marna ay gaabinayso adeero maxaa ugu wacan yani ma garanaysaa sida maxaa ugu wacan odaygu wuxuu yiri ninku markuu soo bislaadaa wax loo sheegi karaa hadda adiga waxba lagu sheegi karaa hadda waa bisashahay waxa ugu wacan buu yiri waad aragtay in ma garanaysaa qorraxdu ay marna dhacayso 11 iyo barkan marna ay dhacayso 12 iyo wax la jira 12 iyo 20 oo kale inay dhacayso waad aragtay waa arkay baan taasaa ugu wacan buu yiri sida ay u keenaysana waxa weeye buu yiri marka qorraxdu ay dhacayso 12 iyo 20 bisha waxa la fiirin lahaa 12 bisha waxa la fiirin lahaa 12 laakiin 12 la fiirin lahaa qorraxdii baa soo jeeday bishii waxay ag fadhidaa qorraxdii soo jeeday baa bishii ag fadhidaa bil marka qorraxdu ag fadhido lama arki karo taa waa la isla ogyahay waxa israacaya marka oo isla dhacaya qorraxdii bisha ayagoo wada socda bay isla dhacayaan halka waxa lagu waayayaa bil dhalan lahayd baa halka lagu waayayaa sidoo kale qorraxdu mar waxay dhacdaa 11 iyo barkan waqtigaas waxa dhacaysa qorraxdii markay dhacdo hadiiba habeenkii baa daba socda qorrax dhici habeenkii haduu yimaadana bishii waxa ku dhacaysa kashifaad halkaasna waxa ka imaanaya bil aan la sugayn inay dhalato marka halkaas waxa weeye labaas yani shay waxay keenayaan marna bishii xawaaraheedii in loo arko inay dheeraanayso marna loo arko bisha xawaaraheedii inay gaabanayso taas weeye mid asaas u maartay muxuu ahaa ugu qanciyay odaygii markuu inta ay sheegay saan uga faa'iideysan lahaa marka waxay noqotay inaan go'aan ka gaaro markaas waxaan ogaa marka arday baan ahaa waxaan ogaa in ma garanaysaa bilahan miilaadiga ah misalba maanta oo kale waxa weeye waa 22 Maarso 22 Maarso kasta qorraxdu waxay dhacdaa isku daqiiqad bay dhacdaa 22 Maarso kasta qorraxdu isku daqiiqad bay dhacaysaa ama ha noqoto sanooyinkii la soo dhaafay ama ha noqoto sanooyinka soo socda marka waxaan raadsaday markaas inaan raadiyo
bil dhalatay oo islaam iyo bil ku aadan oo miilaadiga ah inaan isla doonto markii ugu horeysay waxaan helay kowdii ramadaan 1405 oo ay ahayd maalin talaada ah bishu aad bay u yarayd waxay ku aadaneyd miilaadiga 22 May 1985 marka waxaa laga rabaa inaan helo 22 May kale 22 May kale bil dhalatay in laga helo rabaa oo cirka ka dhalatay sababtu waa maxay 22 May iyo 22 May kale qorraxdu isku daqiiqad ba dhacaysa marka waxa la dhihi karaa bishaas iyo bishii waa isla egyihiin baa la dhihi karaa marka muddan raadinayay 22 May bil dhalatay anoo haysta kowdii ramadaan 1405 inay la mid ahayd 22 May 1985 ayaan haddana waxaan raadinayay 22 May bil kale dhalatay muddo dheer baan raadinayay waxa igu qaadatay 19 sano waxaan helay haddana kowdii bishii afraad 1425 oo islaamka ahayd inay la mid ahayd 22 May 2004 waqtigaas waan kala gooyay labadii taariikhood oo miilaadiga ahayd markaan kala gooyay waxa soo baxday 19 sano oo miilaadi ah hijriga markaan kala gooyay oo 1425 bishii afraad aan ka gooyay ramadaan 1405 waxa soo baxday 19 sano iyo 7 bilood marka waxa la dhihi karaa 19 sano miilaadi ah waxay la eg tahay 19 sano iyo 7 bilood oo hijriya inta markaan helay waxay noqotay horta guushii koowaad oo aan helay bay noqotay markaas waxaan galay calculation ah inaan midda miilaadigaana aan ka raadiyo inta subax oo qorraxdu soo baxday midda miilaadiga 1000 sano waa la yaqaan waa la xisaabin karaa inta subax oo qorraxdu soo baxday marka laakiin 19 sano waa wax yar waa la heli karaa markaan raadiyay waxaan helay qorraxdu inay soo baxday 6940 subax inay qorraxdu soo baxday 19 sano waxaan oran lahaa 7 bilood waxay noqotay 235 bilood bay noqotay markaas inta markaan helay waxa la sameyn karaa isu qaybin marka 235 bilood oo islaam ah oo qaybi 6940 subax oo qaybi oo qaybintii marka waxa soo baxday in bil kasta ay noqoto 29 laakiin jajab uu soo raacayo jajabkaas baa wuxuu sabab u yahay marka bilaha qaarkood inay noqdaan 30 jajabka wuxuu noqday 40 bilood 47 biloodba 25 maalmood baa u dhaxaysa taa macnaheedu marka waxay noqonaysaa 47 bilood 25 bilood ka mid ah 30 bay ku dhamaadaan 22 bilood ka midana 29 bay ku dhamaadaan marka 25 bilood 30 ku dhamaada waxay noqonayaan 750 maalmood bay noqonayaan 22 bilood oo ku dhamaada 29 kana waxay noqonayaan 638 maalmood bay noqonayaan marka waxay noqonaysaa 47 bilood in ma garanaysaa ay la mid tahay 1388 subax inay tahay si kale haddaan u sheego 125 bilood oo ka mid ah 235 bilood waxay ku dhamaadaan 30 halka waxay noqonaysaa 3750 maalmood waxa soo haray kuwa 9 ku dhamaanaya waa 110 bilood oo ku dhamaada 29 maalmood waxay noqonaysaa 3190 isu goynta waxay noqotay 6940 maalmood bay noqotay
oo aan u qaybshay 235 bilood aan u qaybshay halka marka maxsuulku waxa weeye bil kasta inay tahay 29 iyo 25 loo qaybshay 47 inay tahay xawaaraha dayax inta markaan helay waxa wali idaba socda qoraxdii oo marna godka ku cararaysa oo dhacaysa 11 saac iyo bar marna soo taagan oo dhacaysa 12 iyo 20 dhacaysa oo markaas bil marna la helayo bil aan la sugayn la arkayo marna ma garanaysaa muxuu ahaa ay iska dhalanayso bil aan la sugayn marna bil la sugayo la waayayo taasaa wali idaba taagan marka waxay noqotay in aan markaas aan galo hawshii kale oo ku xigtay oo ayadana qaadan doonta 19 sano oo milaadi ah ama se 19 sano iyo 7 bilood oo hijriya qaadan doonta waxaan sameeyay fayl baan waxaan gashaday 20 sano oo soo socda oo calendar islaamiga faylkaas waxaan ku sameeyay markaan sameeyay 20 kaas calendar xawaarihii aan helay oo ahaa bishii inay la mid tahay 29 maalmood iyo 25 la hoos dhigay 47 jajab ah xawaarahaas waxaan ku sameeyay 20 sano oo soo socda oo ka bilaabanaya 1400 iyo isheeg waxa ka bilaabanaya 1400 iyo 25 ka bilaabanaya wuxuu ku egyahay 1444 waxaan sameeyay marka qalin market baan soo qaatay qalanka calaamadda bisha waxaan sii fiirshaa tan ka horeysa markay dhamaanayso soddonka ay tahay baan sii fiirshaa ayadoo aan ka baqayo in ay soo dhalato oo halkaas khalad iga yimaado marka waxaa suurtagal ah oo hadda aan arkay in mar aan ma garanaysaa muxuu ahaa bil ay dhalato bishii hore oo soddon ah meeshaa soddonka baan calaameeyaa mar sidii aan ugu talagalay bay u dhalataa oo koowdii bay kow noqotaa meeshii koowda ahayd baan calaameeyaa mar waxaan waayaa koowdii laftigeedii baan bishii waayaa labadii baan calaameeyaa saddexaas maalmood bay markaa ku wareegtaa inay marna bishii soddonkeedii ay dhalato tii hore soddonkeedii tii dhammaanaysay soddonkeedii ay magaranaysaa dhalato marna koowdii aan ugu talagalay ay magaranaysaa dhalato marna labadii ay dhalato calaamayntaas hadda wadaa hadda oo leega duubayo barnaamijkan waxaa lagu jiraa 1434 wuxuuna dhamaanayaa 1444 uu dhamaanayaa waxaa ii haray calaamayntaas waxaa ii hadhay 10 sano ayaa ii hadhay waxaan soo qabtay 9 sano sidaas ma garanaysaa haddii aan gaaro waqtigaas haddii Ilaahay gaarsiiyo waxaan rajo ka qabaa meelihii aan calaameeyay inay noqoto si arbixin marka aan sameeyo boostooyinka ay ka dhashaan bilaha sidaas marka aan ugu talagalay haday noqoto waxay noqonaysaa guul aad u weyn oo aan u soo hoyay ma garanaysaa kalendarka islaamka inaan la isku khilaafin markaan ku laabto gadaal marka gadaal u laabto sababihii keenay marka waagaas in dawladda Soomaaliya ay ma garanaysaa maalin aan bishu aysan koow ahayn ay koow ku sheegto laba arrimood baan u qaatay midood ama inay tahay waqtigaas Soomaaliya waxay ka mid noqotay wadamada Carabta ayaan ka mid noqonay jaamacatul Arab baan ku biirnay marka waxyaalaha yani isku raaceen wadamada islaamka ah waxa ka mid ahayd hal calendar in wadamada islaamka ay isticmaalaan marka taas inay keentay maadaama jaamacada Carabta aan ka mid nahay muwaafaqatul Arab inaan raacnay baa suurtagal ah waa marka labaad waxa weeye isgaarsiinta ayaa waxay gaadhay wadanka Soomaaliya meel aad u fiican marka adduunkii hadii uu ma garanaysaa dhul fog lala xiriirayo waxa suurtagal ah dhul aad u fog oo bishii arkay inuu noo soo sheego bishii laakiin dawladda Soomaaliya markaas ma aysan sheegin uma ay oranayn waxa laga arkay ama Masar ama Sacuudiga ama ma aysan oran jirin si aan la isku khilaafin oo amarkooda u fulo ee wixii dhihi jiray waxa laga arkay ama Marka ama Shalambood ama ma garanaysaa Buurkaloole ama meel oo ma garanaysaa bay ka sheegi jiray
saasaana ay ku fuljiday markii laga hor yimidna hadda khasabkii markaas bay ku waday in si khasaba loo wada iido hadda oo aan joogno weli dhibaatadii waxa weeye aad bay u socotaa oo waxa weeye culimada diinkii ayaa hadda wax u kala jabeen laba garab oranaya aan la iidno wadamada islaamka iyo garab oranaya annagu ma garanaysaa muxuu ahaa araggeena ayaan ku iidaynaa waa arrin aad u dhib badan weeye markii aan akhriyay kutub badan yani saxiix Bukhari wuxuu ciwaan u sameynayaa ciwaan uu leeyahay ana likulli qaryatin biru'yatiha qoryo kasta magaalo kasta araggeeda ayay ku camal falaysaa marka taas waxa weeye marka culimadii kala waadideen oo waxay yiraahdeen suumu biru'ya wafduru biru'ya macnaheedu waxa weeye waa kelmad caama oo adduunka oo dhan la hadlaysa oo oranaysa suumu biru'ya adduunka oo dhan araggiina ku sooma wafduru biru'ya adduunka oo dhan ku afura arag ku afura oo waxa weeye adduunka meesha ugu shaqeysa hadii bishii laga soo sheego waa khasab in ma garanaysaa lagu iido ama lagu soomo saas culimada qaarkeed baa qaba hadda labada qoloba waa dadaaleen laakiin anigu waxaan raajaxayaa oo yani ma garanaysaa yani aan niidada ku xasishay in ma garanaysaa aragga yani mandaqad kasta araggeeda ay ku soonto ama ku iido waxa kale oo jira xisaabta ma la ogol yahay kalendarka islaamka يعني شريعة الإسلام محوك قبا كالندر الإسلام إن السنوية هرتا أصلكو دينت مركا أصل كذا لفيرشو وحاوية إن بشا أون هلكا لغا فيرسودا عركاس إلهي إن لغا فيرسودا حدي بشي لأركو وايانا لغا استاغو حدي بشي لأركنا لغا عمل فلا هرتا أصلكو واسدا أصلكو مركو سيدا يهي ولبا وحا عبادة قوني فإن غم عليكم هداي ضرور تماده سيدي اللي لها فإن غم عليكم هدي ضرور أي تماده أو عركي إذا كقر صومه فكملوا 30 يوما من شعبان لما يسترى شعبان إنه يهي صدن كل لما يسترى لفتي جلسة واحد هاي عبادة كلا ومقرنا هدي عركي لقى دبوره وأد كيستاكتد إن يديد أما إن سونتد وصدق كأرمستد أيضا صار واحد هاي عبادة كلا سؤال بأمرك هالك إيمانيسه ما لقي يا أدون كورن هالمر إن ضرور قريسه سؤال شاس مركا لو فرصده هذا لو فرصده وحوي معقول معه أدون كورن بهالمر إن ضرور قريسه وما قرنا أدون كورن مر بعد يسن ضرور قرنين مركز واحد مودا إن أرنتاسو أي راعسن تهاي إن غلق كستبا أرجع أي كوسانته أما أرجع أي مقرنة أي كوافده إن أرنتاس أي راجع تهاي بالغيابة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.